Yes. Yeah. xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa laga dareemayaa u diyaargarowga munaasabadda Ciidul Fadriga iyadoona suuqyada waaweyn ee xeryaha laga dareemayo mashquul aad u tiro badan dadka ayaa inta badan doonayaan inay ka qayb qaataan munaasabadda maalinta Ciidul Fadriga waxaana inta badan suuqyada soo buux dhaafiyay caruur iyo hooyooyin iyo sidoo kale dhalinyarta qaybahooda kala duwan waxayna inta badan u diyaar garoobayaan munaasabadda Ciidul Fadriga inkastoo dadka inta badan ay isdiyaariyeen halka kuwa kalena aysan haysanin waxay ku ciidaan qaar ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee Dhagaxley ayna cod qabadka warbaahinta la dhax qaaday waxayna ka warbixiyeen xaaladda uu ganacsiga marahayo iyo sida ay ugu diyaar garoobeen munaasabadda ciida jabiga magaalada ayaana ah sidatan اوكي ما سند مغعيغو waa maxamuud raaga nuur ku nool xerada qaxootiga Dhagaxley ما شاء الله boqolkiiba boqol aan dhigi karnaa meelaha diyaar garowga ciida dabaaldega tartolashada populationka dadka wax la sheegi karo ma aha boqol sano hadda ka hor inama soo marin ciida maanta haysan wax la soo dhigi karo ma aha ciidan waa barwaaqo waa qabow waa nabad waxa la haystaa arbixi raashinki dagarsoonkii raashin lagu bixin la raashinki dhinac kasta waa barwaaqo sooran dadka soo banaan baxay waxa u badan dhalinyarada gabdhaha wiilasha maamooyinka laftirkooda kama marno hadda laftirkooda hadda la iibiyo marka sidaa darteed kabaha hadhiin saraawiisha hadhiin khamiisyaha hadhiin saakooyinka qaar anaga tolo qaar Nairobi baa lagu soo talaa maadaama anaga laftirkaana uu jaamka naga yarabatay qaar baa xaq u dirsan oo iyaga kulan keenaan marka isdhexgal fara badan baa ka jira ma sha Allah magacaygu waa Fawzi Maxamed Cumar ganacsada ahay ciid waxa ugu diyaar garoobay farxad iyo ma sha Allah aniga caruurteyda والله جلال waxay ku kala dugan mala ma sha Allah waa isku wada mid ciidan bash baraqay ugu diyaar garoobay isoo dhaweyn fiican Allah diyaar garoobay ciid waa fiican tahay waan soo dhaweynaa magaalada kastamka iyo dad nooc walba la haya insha Allah waa ciid wanaagsan ciid si fiican bay u socotaa dadkana si fiican bay u adeeganayaan ma sha Allah ciidii hore kala duwan yihiin because ciidan dadkii dhan baa imaada magaalada ifutu iyo fitriya la soo raray magaalada hadda si loo kala socdo la leeyahay ay magacayga Yuusuf Cali Cabdullaahi Waldhaa waxaan waxaan joogaa magaalada Dhagaxley kawaha iyo diyaar garow waa aad u fiican ma sha Allah inkastoo ciidii hore iyo ciidan aan isku mid ahayn kulli wallahi mawduuc aad badan baa u dhaxeeya ciidii hore ka fiicnayd si fiican baa in salaamaya ما شاء الله كانوا يسكسوا ولا قدرنا ما شاء الله معي وحسن عبد الرزاق صلاة تقولوا عيد أدي أدي وفرن سنة ما شاء الله ما أنتوا عيد أدي مركا أدي وهم بلينا ما أنت عيد السلو أيوة وتقدر فرحان وفرحة عيد وانا كدر فرحي ما شاء الله عيد الله نوضة نوجرسية الحمد لله عيد فرحنا في دروا ورن معي ومحمد علي عدو أنا يرسل أنت بنا حقوقي كرم محمد جيشي والله رنتي لمسوا كوكو waxaa jiraan boqolaal danyar iyo maskiin agoon iskugu jiraan isla markaasina aan awoodin inay ciidaan halka kuwa kalena ay isku diyaariyeen munaasabadda Ciidul Fadriga balse kuwaas cidna uma maqno ceelna uma qadno Xasan Kaafi Badda Astone for TV xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab